اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka hadlayaa dhagaala nuis waraysadii ay caam kusoo baxday oo maantana ay duubayso. waxaan halkan kusoo dhaweynayaa farax. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما سنتي حاج عمر maanta waxaan ka hadlaynaa beesha ciise dhulkeega oo dhan awdalaan iyo xuduudka Jabuuti sidii la iskugu furi lahaa maadaama ciidanka Jabuuti oo Soomaaliya nabadda ka sugayo. bal maxaad maanta aad odhanaysaa ku soo dhawo waraysiyadan. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج عمر وما سنتي والسلام يا شقالها إن راديو إن حريرة حدقالة هن إلهي وانكحهم هاي إن والله رمهانتي سنة مرخينو وحبضا يا ما دركتي إن صوبة بحية إن وحبا حق لا يسكرهجي أو سيدي للمودي وينقوم ويدي إن قبل كان Soomaaliya aan ku leenahay ma daragtay oo ciisuhu ka degan yahay wax badan oo ma daragtay arrimo badan baa ku soo baxay maadaama ay doonayaan imika inay ma daragtay fariisimo badan oo dulal badan ay ka samaysanayaan qolooyinkii afka duuban lahaayay maamulayeen Soomaaliland ay maamuleysay ay doonayaan inay ma daragtay hub iyo wax kala duwan ay ka soo dejistaan xeebaha gobolka Awdalland taasina ay maadaragtay Jabuuti ku keeni doonto fasahaad iyo dib maadaama ay dawladaha ugu faraduuban ee Soomaaliya ku soo dabaalaya nabadda ay Jabuuti hormuud ka tahay taasina ay ku keentay gobol maamuleedka Somaliland maadaama ay rajaynayeen dawlad beeleed in adduunku siiyo ay noqonina weyday dawlad beeleedii inay ku guuleystaan arrimihiina ay ku xumaadeen oo qolo taageertay si ay Soomaaliya u degin qolada afka duuban leh loo yaqaan al-shabaab xaq hubeed iyo xaq maaliyadeed iyo xaq kale oo ma aragtay dadba intaba ay ka taakuleen jireen tiina ay ku soo baxayso oo maanta marka halkaan ka joogno ama sida aragtida adduunka ay tahay ay ku soo rogmatay in ma aragtay iyaga ilgaar lagu fiiriyo waxaan leenahay oo aan ku baaqaynaa haddaan nahay dadkii ka soo jeeday gobolka Awdalland in Soomaaliya uun ay wada tahay meel kastoo fasahaad jirana in laga qabto geeskana ay tahay daruuri waxaan ugu baaqaynaa dawladda Jabuuti ciidamadeeda waa inay laba wajahadood ay u kala dirto qaybtani fasahaadku ka soo socdo cusub gobolkan Awdalland xagga xeebaha iminka isbalaadhiska lagu qabsanaya ay awmaadantay ka bilowday ay doonayaan inay marsooyin iyo dhul ay ka sameeyaan xiis ilaa iyo maadaragtay saylac iyo fadhiisimo inay ka samaystaan hubna ay ka soo dejistaan ay doonayaan ay kuna weeraraan Jabuuti iyo Ethiopia ana waxaan doonaynaa in ciidamada Jabuuti ay ka hortagaan gobolka Awdalland inay gacanta ku soo celiso ciidamada Jabuuti ay gacanta ku qabtaan si ay maadaragtay wadanka Soomaaliya ee ay nabadda ku soo dabaalayaan bay kamid tahay gobolkani inay halkana ka hawlgalaan oo ilaa Soomaaliya dawladnimada inta ay ku soo noqonayso si rasmi ah waxay jirtaan badan tahay shabaabkii waxay la shaqaynayaan dad badan dawladda Jabuuti nabadgelyadeeda si u ilaaliso sida wadamada adduunku ay u yiraahdeen buffer zone meeshani qayb nabadgelyadeeda ayay ku xidhan tahay waxaad leedahay marka gobolka Awdalland ciidanka Jabuuti ha qabto xeebaha oo dhan ha qabto xadkana bulaxaar ilaa iyo xuduudka buuraha dabadeeda garbadadar ha ka dhigtaan si nabadgelyada Jabuuti ay u sugnaato waa ujeedaa. nacam xaaji sidaad sheegtay weey xagga xeebaha ilaa bulaxaar dhammaan gobolka Awdalland xuduudihii 60kii waa in ay maadartay ciidamada Jabuuti
ay gacan ku hayn degdega kusoo rogaan oo maaragtay lagaga sifaynayo lagagana hortegayo cadaawadan sharciyada adduunka marka la yidhaha Djibouti wadan bay gashayna maxaa laga odhanay sababtoo ah Djibouti inay ku xadgudubto xuduudadii dadka sharciga adduunka siba laakiin Djibouti oo ciidan United ku ogol yihiin iminka balad weyna ay joogaan halkana ciidanka hadday tiraahdo dafar suunkayga yani ilaalina sabab xagan iga soo galaya adduunku taageeray laakiin haddii ay Somaliland tiraahdo wadankayga Djibouti ku soo xadgudubtay oo xeerkii adduunka loo marana arrinkaana maxaad odhan runtii ma aha maaragtay tan iyo taa maaragtay sharciga adduunku waa ay kala duwan yihiin Soomaaliya waa Soomaaliya qariirada Soomaaliya maanta waxaa la doonayaa adduunku inuu maaragtay meel kasta oo dhibaato ay kaga taalaba ay ka gooyaan dibkuna ka hortag iyuu leeyahay ka dabateg ma leh maanta haddii laga hortegi waayo dibkani soo socda ee ka soo socda qaybtan maamul goboleedkani beeleedka ahee doonaya inay maaragtay ay dhulka ama maaragtay kooxaha kala duwan ay caawiyaan ay kuna soo wajahaan labadan wadan ee Djibouti iyo Ethiopia ilayn ma laha maanta cadow kale ma laha sidaan u ognahay reerkan maaragtay beeleedka ee doonaya inay ay maaragtay baabi'iyaan koonfur ay doonayaanna inay maaragtay ku daraan Djibouti maadaama Djibouti maanta ay tahay ciidamada ugu xooga weyn ee koonfur doonaya inay nabad ku soo dabaalaan wadankiina uu yahay Djibouti ay og yihiin waxay doonayaan fidnad iyo maaragtay dibkaas inay u soo wareejiyaan qaybtan xagga Djibouti marka waa ka hortag waxaan doonayna inay samayso dawladda Djibouti oo indho dheer meeshan ku eegto waxa ka soo baxaya su'aasha kale oo meesha taala sidee bay iskula qabsanayaan madaxweynaha Djibouti oo siyaasadii gudaha maanta ay qasan tahay oo xisbiyadii mucaaradka isaga ay aad isku kacsan yihiin haddii aan qurba joogti beesha nayna aan doonayno inay dawladdu isballaariso oo buffer soon samaysto sida Ruushiyaba uu markii Ukraine reer galbeedka ay ku kiciyeen ay Crimea ay Russia tiri waa buffer soon kay oo qabatay xuduudda Djibouti loo yaxda laga durkiyo oo la geeyo bulaxaal oo halkaa la geeyo haba saatee siyaasadii gudahana ay qasan tahay mudane madaxweyne Ismaaciil Umar Geelana siyaasadii gudaha ay fashilan tahay tii dabadda si ay fiican tahay arrintaas ay iskula qabsani arrintaas waxay iskula qabsani maanta wuxuu ku dhex rafanayaa markaan eegno dalkiibuu ku dhex rafanayaa dibaddiina hawluu ka qabanayaa sida dalka Soomaaliya oo kale maanta aan u arkayno waxay fiicnaan lahayd sidaan inagu u arkayno hadduu u arkayo oo ah nin gudihiisu ay nabad yihiin iyaa dibaddana nabad ku soo dabaali karaa halka laga haysto ama dhibka meesha uu ka ceejinayaay waa dalka gudihiisa maadaama uu dadka u ogolayn inay horumar samaystaan ama uu ka tago uu yidhaahdo waar cid soo doorta aniguna taladaan ku wareejiyo dadkuna waxay seegsan yihiin maanta ama ay isku weydaarsan yihiin waxay doonayaan wax laga soo gudbay oo laga tegay inay maaragtay ku doodaan oo yidhaahdaan saami qaybsigii dawladnimaan doonaynaa dawladdii hoose kuraasideedii iyo dadka ay kaga dhigtay waar ma aha taa waa laga tegay oo wax soo noqonayaa ma jirto waxaa iniigu dhow hadalkiina inaad ku jirtaan madaxweynaha inaad bedeshiin oo au iniga tego oo dalka ka tego oo tidhaahdaan waktigaagii uu dhammaaday naga teg sababtoo yahay haddaba faraxow maadaama aad sidaa tidhi eedayn kalaa jirta xisbiyada mucaaradka ENB-da ama siday dawladduba tiraa ama sida guux badan uu jiro waa 7 xisbi oo isku tagtay waxay ESN la baxday maadaama ay 7 yihiin leader
reer galbeed iyo dawladaha gaarka sida Ethiopia la aaminsan yahay maanta meesha uma sharaxna waxa weeyaan isbedel badan bay u baahan yihiin santo inay soo saaraan oo conference qabtaan oo mid lagu kalsoon yahay oo reer galbeedkana ka iibiyaan dawladda Ethiopia oo ganacsi weyn kula Djibouti-na ay aaminto maadaama madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele halkan uu dhowr iyo 30 sano ku rafanay adduunkiina inna gaara maanta ku eegayo marka xisbiyadani waxay u baahan yihiin shabale oo sidee ula hadlaysa xisbiyadan mucaaradka waxaan ka doonaynaa ama dadweynuhu ka doonayaan inay golihii baarlamaanka soo dhistaan dawlad rasmi ah gudoomiyihii baarlamaanka ay soo dhistaan golihii madaxweynihii ay soo dhistaan golihii wasiirada ay soo dhistaan wasiirada ku-xigeenkii ay soo dhistaan dawlad rasmiyan ah oo maadaragtay cududeeda iyo maadaragtay khibradeedu ay sarreyso oo caalamku awla dhiilgarayn karo la isfahmi karo inay soo dhistaan baan ka doonaynaa si degdeg ah madaxweynuhu wuxuu meesha ka laayahay mahmaha Soomaaliya tidhaahda hashu hoosteeda nin bay ka weyday tidhaahdaa jirta madaxweynuhu agtiisa wuxuu ka laayahay ama wuxuu maadaragtay hoostiisa ka laayahay dawlad dhisan oo meesha ku cidhiidhida oo caalamkana la dhiilgaraynaysa ama caalamku au tixgelinayaa inay weli ay meesha san jirin buu ogyahay waxaan ka doonaynaa maadaragtay mucaaradku inay isku tagaan tashadaan madaxweyne ay doortaan rasmiyan dawladnimo wixii ay lahayd ay la yimaadaan taasi markay dhacdo waxay samaynayaan wafdi caalami ah martiqaad adduunyada ka helay farax imika waa xisbi opposition iyagu dawlad kuma dhawaaqi karaan laakiin opposition leader oo mustaqbalka u taagan inuu madaxweyne noqdo ayaa loo baahan yahay dawlad imika iyo madaxweynaha ku dhawaaqaan hadda dawlad baa meesha ka dhisan sida imika reer galbeedku wasaneeyo xisbiga dawladda ka soo horjeeda waxaa la yidhaha xisbiga leaderka oppositionka baa loodhan leaderkiibaa u taagan marka u dhow mustaqbalka madaxweyne ujeedada ugu weyn iyo santo inay leader lagu kalsoonada soo saarto ayaa loo baahan looma baahna hadda dawlad lagama garab dhisi karo marka taa waa inaad kala saxdo dawladnimo sharci ah oo rasmiya dalku waa leeyahay oo waan ognahay ma doonayno mid sida aad sheegtay dawlad laga garab dhiso laakiin midda jirta maadaragtay ay wax ku hirgelayaan ama ay ku toosan yihiin dadka iminka shacabku waa ku wareersan yahay mucaaradkani waa ku wareersan yahay xisbiyadan isku tegay mucaaradka marka mucaaradkani waa inay isku tagaan oo iyagu aysa soo doortaan rasmiyanna si dawladnimo sidii ay ku shaqayn lahaayeen waa inay caalamka waxay tusayaan caalamka inay maxay ahayd ay ku guulaysteen doorashadii lasoo dhaafay waxay caalamka ay tusayaan inay maadaragtay xaqdoon yihiin waxay caalamka tusayaan inay maadaragtay dhisan yihiin laakiin weli taas way leeyihiin ma ay soo bandhigin taabaa laga doonayaa inay soo bandhigaan adduunyaduna ay yidhaahdaan war xaq bay uleeyihiin dadkani intaas waa 2 sano iminka wax la marayo waktigii doorashadu ay dhacday oo wax yar dhiman dawladnimo waxay ahayd baan ka doonaynaa inay la yimaadaan mucaaradku ay tusaana dadweynahooga inay dadkan iyo dalkanba maamuli karaan wuxuu leeyahay madaxweynuhu afkiisa mar walba cid ama wadahadal aan la gali karaay ma jirto cid aan dalkan ku aamini karaay ma jirto waa kanay arka iyuu leeyahay af buuxa hortoodu ku leeyahay marka wuxuu arkayaa in ay waxoogaa kala jiitanaan jirto taasina wax shacabka iyo dalka anfacaysa maaha waa inay la yimaadaan wax rasmiyaan leenahay xaaji waayo hadday la yimaadaan ma u malaynaysaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele inuu odhanayo war anu retire baa noqday daadiina way haysaa 30 sano waan soo shaqeeyey waan iska nasani nabadgelyadaydaan rabaa carruurtayda iyo faamigaygaba inay dhulka ku noolaadaan inuguna dawladdii qabta hadduu yidhaahdo ma u malaynaysaa inuu nabadii helayo dhulkiisa iska joogay rasmiyan nacam taas wuu helayaa laakiin mid baanu helaynin mar buuna taa helaynin maantay u dhowdahay haddii halkaa ay dhaafto oo uu yidhaahdo xoogga umaan dhulka ku haynayaa dadkana aftuubka umaan ku haynayaa
talalaantaasaan la joogayaa hadhow iqriyaay iyaa dhici doonta mana heli doono meelaw ku gabado waana la qaban doonaa oo adduunka loo dhiibi doonaa waxaa jirta mamaah la yidhaahdo ciiso biili ma lehe boqol buu kala qaataa boqolaan nin oo imikadan la dilay wadanka laga masaafuriyey dib loo geysto badan baa jirta madaxweyne cumar geele markaa sida xeerkaa isagu dawlad buu xeerkay gudanayaa wixii la quman markaa ama wixii la qaldanba uu samaynayaa haba hatee dad badan oo maanta dhibsanayaa jira sidee loo sugi nabadiisa hodhow toolo dad badan oo walaalihii ka dilay aabihii ka dilay oo ilaa imika dhibaato qabaa jire xaaji cumarow hadduu ciisuu beeli lahayn sharcigaa beeli leh sharcigu waxa uu cafinayaa ma jirto sharcigu qof maadaragtay aw xadgudub ama maadaragtay caadaystay waxa falalka xuna waa la iskaga dambeeyaayoo xisaabtu meel ma aadaysee korkiisay noqonaysa waayahay haddaan dhinaca kale ujeesano maamul goboleedkii Awdalland mudduu shaqaynayaa maadaama maanta aan baaq soo jeedinayso maamulkii madaxweynihina uu North America kula joogo waxa weeyaan baaqani oo leedahay Djibouti halka ciidan ageyso qabato gobolka Awdalland dawladii Awdalland maamul goboleedkii Soomaaliya ka tirsanaana waanka masloogtiin oo arinaad gaadhanba dawladda gobol maamuleedka Awdalland runtii muddo badan ayuu ka shaqaynayay sida maadaragtay aw u qabanayo ama sida maadaragtay ay wax ku samaanayaan nabadgelyadii iyo maadaragtay sida ay wax u jiraan halka ay maanta tala taalaay waxa weeye inaan laga hortago marsooyinka cusub maadaragtay qolooyinka afka duuduuban loo samaynayo ee laga soo wareejinayo laas qoray iyo dhulka ay iminka joogaan xiis loo soo wareejinaya xaggan Djibouti fadhiisinadoodana in laga dhiga la doonayo taas go-aankeeda waan meelaynay taladeeduna waxay tahay inaan ka hortagno waad og tahay qolooyin waxaa jira oo elef la yidhaahdo Ethiopia ka dagaal gala oo ogaadeena dawladda Ethiopia ma la xidhiidheen oo qoraal ma u dirteen oo arrintaa iyo dawladda Djiboutiga weli mise baaqana ugu horeeya mise weli wax halkaa qoraala ma la xidhiidheen oo mantiqadan oo dhanba Ethiopia iyo Djibouti ba khatar bay u tahay marsada la dhagax dhigay ninka dawladda isku sheegay uu dhagax dhigay toddobaad way taas weli kalama hadal dawladaha iyo maadaragtay gobolka kililka insha Allah tana u horeysa wixii halis nagu keenaya xaggan iyo xaggaaba waa laga hadli doonaa haddii la hayra waayahay taasi waxa weeyaan Adagaala News dhageystayaashada qiimaha qaylow kaasina wuxuu Faarax Isa Xaji oo maamulka Awdallandna ka xildhibaan kana maaragtay qurbo joogta ku nool North America inta aan dib u wareysi kala u qaadi doono Adagaala News waxaan leedahay salaamu calaykum